Saakir Abdulkarim Naik waa nin bulsho wuxuu sheeg ah una dhashay waddanka Hindiya kaas oo ka hadla diinta Islaamka iyo diimaha kaleba. waa aasaasaha iyo madaxweynaha jamciyadda baaritaanka Islaamiga ah ee Islamic Research Foundation. jamciyaddan waa mid mutadawacnimo ah waxayna leedahay warbaahiyaha caalamiga ee Peace TV ee fadhigiisu yahay magaalada Dubai ee isku taga Imaaraadka Carabta. ka hor intaanu noqonin u hadla diinta Islaamka waxa uu bartay maadada caafimaadka halkaas oo uu diyaariyay dhakhtarnimo. taariikh nololeedkiisa Dr. Saakir Naik waxa uu ku dhashay magaalada Mumbai ee dalka Hindiya markii ay ahayd 18 Oktoobar 1965. waxbarashadiisa laga soo bilaabo dugsiga hoose ilaa jaamacadda waxa uu ku dhigtay isla magaaladaas, halkaas oo markii dambe uu ka baxay jaamacadda Mumbai 1991. Dr. Saakir waxa uu bilaabay in uu ka shaqeeyo daaweynta dadka waxayna ahayd sanadkii uu dibadda u taagay ururkiisa Islamic Research Foundation. Dr. Saakir Naik waxa uu sheegay in dhiirigelinta ugu badnayd ee sababtay in uu noqdo qof u hadla diinta Islaamka uu ka helay sheekha weyn ee u dhashay dalka South Africa, Sheekh Ahmed Didat, mar uu la kulmay sanadkii 1987. Naik wuxuu yidhi, hadafkaygu waa in aan xoogga saaro dhalinyarada muslimka ah ee la baqa diintooda isla markaasna u haysta wax laga tegay, taas oo uu aaminsan yahay in ay tahay waajib saaran qof kasta oo muslim ah in uu iska saaro fikradaha qaldan ee uu ka aaminsan yahay diinta. Dr. Saakir Naik khudbadihiisa oo qoran waxaa lagu daabacaa wargeysyada iyo majalladaha caalamiga ah, uguna horreysa majalladda Islamic Face. nin ku xeel dheer barashada dadka iyo waxa ay aaminsan yihiin ayaa Dr. Saakir ku sheegay in uu aad uga yaabay sida uu ugu xifdisan yahay quraanka iyo xadiisyadaba afaankiisa hooyo ahayn. taasina waa sababta ka dhigtay buu yidhi inuu caan ka noqdo bulshada muslimka ah iyo taa aan ahaynba. khudbadihiisa iyo doodaha caalamiga ah ee uu qabto Dr. Saakir iyo khudbadihiisa waxaa lagu baahiyaa habka online-ka, waxaa kaloo loo duubaa qaab cajalada ah taas oo laga daawado dhammaan dacallada dunida. khudbadihiisa oo ku duuban luqadda Ingiriishka waxaa laga sii daayaa warbaahiyaal badan oo uu ka mid yahay channelka Peace TV. mowduucyada ugu qiimaha badan uguna caansan ee Dr. Saakir waxaa ka mid ah quraanka iyo sayniska, islaamka iyo kiristanka, iyo islaamka iyo calmaaniyadda. Naik wuxuu khudbado iyo dooda ku qabtay meelo badan oo dunida ka mid ah, waxaana ka mid ah doodii caanka ahayd ee uu la galay William Campbell taas oo ka dhacday Abriil 2000 magaalada Chicago, kana hadlaysay mowduuca cinwaankiisu ahaa quraanka iyo Baybalka. 2004 Naik waxaa lagu marti qaaday jaamacadda Melbourne ee magaalada Melbourne, Australia ku taala, waxaana uu ka hadlay mowduuca ah in diinta Islaamku tahay ta kaliya ee siisa dumarka xuquuq dhamaystiran. 22 January 2006 Naik wada hadal diimeed la galay Ravi Shankar taas oo ka dhacday magaalada Bangalore kuna saabsaneed fikradda ilaaha ee Islaam iyo Hindooska. Naik waxa uu noqday qofka 28aad ee liiska 100 qof ee ugu awoodda badan Hindiya 2010 ee ka soo baxay wargeyska The Hindian Express. sidoo kale wuxuu ka mid noqday shakhsiyaadka lagu soo qaatay buugga la magac baxay 500 ee muslimiinta ugu saameynta badan. sanadkii 2012 Dr. Saakir Naik waxa uu safar ku tagay waddanka Malaysia halkaas oo uu ku qabtay in ka badan 5 khudbadood. 2013 bishii July Naik waxa uu ku guuleystay abaalmarinta ah shakhsiyadda Islaamka ee sanadka, taas oo lagu guddoonsiiyey sanad guuradii 17aad ee Dubai International Holy Quran oo lagu qabtay magaalada Dubai.